وحويا دولة دحاء فدرالكا وحان لنا قاعن بدحين تأتكو وضان أهل السنة والجماعة أو قيبي أو حكم كدافة وحان لنا أهل السنة والجماعة والأوجيه وادتكي بري ومدى الصوماليات إلا إسكعلين كرو خوارجت وادتكي بري خوارجت لفت جود إلا إسكعلين كرو محو أخا وادتكي بري صاحب بدا محو أخا فوريانكا دولتها أمسوم ممبرسك أي كمديهين إن لا إسكعلين كرو الشباب صوماليدون إسكعلين كران دولك حدث أهل السنة والجماعة أي كتلسنة ودولك وقلنا بدقليادة في عن مرك الله إيقا حمر وحا كدعايا ساتيسكالي شن دعضو أيا كدعا والشباب أي كجيستان صوماليا أفر إلى باتنك ساعبو وحين أقود بين حتى ودمدا جاركا إن بدقليادة أي خلق القلية أي أقود بين الشباب يعني ما أهين وحنا اللي أجي هاي مركي دولتنا هاد جرت أي حكم كقبنيسي الشباب وحي أهين كو كونفيوسد أو وررسن أو ديسأرية أو كالحبابي أو رعد كجري أهين ما أنت نوحي قارن سيدا ومكور بحيي الجزيرة أكتوبر اللي بدأ يكسي أمازون كوماندر فورس إيه أفيانك أمازون بكورنيل علي هذا سيدا يكون بحيان الجزيرة يكسي ينبا وحي دهان كانتري سايت كوحا حكومة الشباب وحنا نقول الريسورس وحنا أباهنا إذا ما كان أباهنا waxaa la ogyahay maanta in xataa saraakiishii amniga ee degmada hodan iyo meelo kale oo isla muqdisho ay ku dilayaan aad bay nabadgelyada u soo ma aragtay u soo xumaatay waxaana ugu wacan ma aragtay dawladdan oo ku fashilantay muxuu ahaa xagga security ku fashilantay waxaan qabnaa in ciidamada restructuring lagu sameeyo waxaan qabnaa good quality leadership ay lahaan jireen ciidamada oo al-shabaab awl bajibiyay in ma aragtay raggaas ay rag u dhigma loo dhiibaan qabnaa waxaan qabnaa dawladdu inay faraha kala baxdo maamulada gobolada ah sida dastuurku qaba dadka ayaga xaq u leh inay soo dhistaan maamulkooda dawladdu waxay leedahay ka warqab iyo observation ayay leedahay iyo talay leedahay laakiin inay farageliso oo daday ayaga rabtana soo saarto kuwa xaq u lahay oo dadka wataan ay reexaan dawladdu waxaan rabnaa inay faraha kala baxdo taas waa mid Soomaaliya wax u dhibayso dadkana waxay sarrabin cid sanka ka galin karta ma jiro anigu waxaan qabaa galmudug si sharciye u dooratay dadkeeda oo dastuurkeeda waafaqsanay ay u dooratay madaxweynaheeda waana la ogyahay waxa kale oo jira oo ay madaxweynihii horaana ku wareejiyay guddi madaxweynihii hore uu soo dhisayana doortay oo annaga aan ka dhex tartanay sida qodobka 12aad ee dastuurka uu qabo ahlu sunna wal jamaacana dhulkeeda ayadaa xoreysatay maanta uma baahna in ma aragtay dad oo kale oo extremist tendency leh aqeedada oo wahabiye ay wax la mid ah in ma aragtay gobernatore looga soo dhigo ayagana la kala qaybiyo iyadoo la adeegsanayo powerka dawladda uma baahna waa arrin xanuun badan oo dalka ma aragtay muxuu ahaa fashalinayso weeyaan waxaana ku garan karnaa ahlu sunna dhulka ay jirto ay ka taliso ama ay ka talin jirtay kama dhacaan waxyaabaha ka dhaca inta kale oo ma aragtay Soomaaliya waxaan leenahay marka dawladda markaan shirkii hore gobolada dhexe parliamentary meeting aan qabanayna waan u sheegnay shirkaas inaan galmudug iyo ahlu sunna ay ku heshiiyeen inay qabtaan shir ma aragtay si xor ah ay dadkoo dhan deegaankaas leh ay si xaq uga soo qayb galayaan dawladda ayaga ay rabaan truule ayaga ay ka timidna ay dhisanayaan ayaan anagu ma aragtay muxuu ahaa aan u sheegnay waana naga aqbaleen dawladda dhexe xubnihii aan ka aragnay waa naga aqbaleen inaan markaan meesha tagna la soo hadalno waana wadnaa qorshihiina waa wadnaa waxaan leeyahay dadka ahlu sunna wal jamaaca ee gobolada dhexe iyo dadka galmudugba inay ka tashadaan ayahooda sida khawaarijta uga difaaceen dhulkooda maamulo ay raalli ka yihiin ay u samaysteen waa inay ugu fara adeegaan haddana inay dhistaan maamul goboleedyo ayaga ay u madax bannaan yihiin oo aan loo yeerno aan kor looga soo degtayd kareen waxaan rajaynaynaa taas inay dawladdana gacan nagu siin doonto waxyaabihii horena ay ka waantoobi doonto ayaan annaga rajaynayna dawladda laba problema haysta aniga aragtideeda mid waxaa waaye problem caqiidahe weli wadaa ayagu dama jadiid ahaayeen xukunkay qabteen waxaa laga rabaa يعني new national status مقام كعصوب وقرنمو أي هيان إني رفلكت جريان كجوابان أي اللوبان وحي هراء وقادان الصومالية إن الله هدد أفكار كلا دون له إني الصومالية دن أي وديهين إني تا ومركز يقول حيان ذاك تامية له تلا بعد experience واحد دولة ده كلمة وملها حبناها الدولة ده أنت أنا أرجعني experience الشقاء الدولة ده ملها تاس وحن قلت شيء ده مركز وحويان أنا مركز تواسينين وانا نصيب درو inaan ma aragt inaan la qaadan waxaad garan kartaan meediyatiin
كل نقطة مثل ويب سايت يدين ميديا ملك لها آدمين أفر إلا باتنك الساعة وحكر على الشن إلا اللح شل أكرعة دكان كاسن كمردعين taas laftigeeda waxay practical u tahay ma aragtay muxuu ahaa inay nabad meesha ka jirto not only inay dagaalka konton iyo kow dagaal ay ka soo galeen dhulkaas ay xoreeyeen halsuuna markay dagaalamaysan of course waa la ogyahay galmudug xiriirka xagga ay gacanta iyo waxay ka geysanayso aaqidahan say isku raacsan yihiin naaw maanta waxay gaareen shabaab inay xamarna culays saaraan ay gaareen oo habeenkii ay weeraraan saldhigyada iyo degmooyinka yaqshadii inay weeraraan waxay gaareen wadamada jaarka inay target ka dhigtaan oo dad badan oo Soomaaliyeed oo boqolaal kun ah martigeliyay oo si nabadan ugu nool inay martigeliyaan ayagoo ujeedadoodu tahay in dadkaas target laga dhigto oo dadka lagu diro kadibna ayadoo la xumeeyay ay ku noqdaan dalka si ay u helaan dad ay dhalinyaro ay khasab ma araysan oo ay mar labaad khasab uga dhigtaan ma aragtay muxuu ahaa ciidan uga dhigtaan dawladdu markaas diyaaraan u nahay annaga waxa aaminsanahay alla sunna hadaan nahay aqayda ahaan waxa markaan soo dagaalamayna xogiyihii guud ahlu sunna wal jamaacana waa ahaa guddiga dhexe ahlu sunna wal jamaaca todobada ma aragtay 7 member central committee ahlu sunna wal jamaaca leadership committee-geena xubin baan ka ahaa hadday tahay midaan koonfurta iyo hadday tahay midda kaleba wax cad oo la ogyahay markasto annaga waxaan qabnaa dawlad Soomaaliyeed noo ah ajenda gaar ah oo aan wadana male laakiin waa in looga shaqeeyaa si honest leh oo dastuurku waafaqsan Soomaaliduna u siman tahay wadajirna looga hortago la istixgeliyo annaga saasaan qabnaa nasiib darro dawladdan wali waa laada